رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالي محمد حسين روبله waxa uu maanta la kulmay wakiilada beesha caalamka waxa ugu horeyn ra'iisul wasaaraha warbixin uu ka siiyay arrimaha doorashooyinka iyo horumarka laga gaaray iyo kulankii ugu dambeeyay ee ay yeesheen golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble waxa uu ku celceliyay oo uu u xaqiijiyay wakiilada beesha caalamka in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigoodii isla markaana uu xoogga saari doono arrimaha muhiimka u ah sida arinta qoondada haweenka sidoo kale waxa uu sheegay in uu guddigii ay shaqo bilaabeen golaha wasiirada ee uu magacaabay dawlad goboleedyada arinta gado oo ay hadda bilaabeen inay la kulmaan cuqaasha muqdisho ay ka bilaabeen sidoo kalena ay tagi doonaan sida ugu dhaqsaha badan meelihii ay quseysay iyagoo wada hadallada sameyn doona ugu dambeyntii wakiilada beesha caalamka hadla iyaguna waxay sheegeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin dadaalada uu wada ra'iisul wasaaraha isla markaana ay gacan ka sii doonaan sidii doorashada ay waqtigeedii ugu qabsoomi lahayd guddiga farsamada ama kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu magacaabay madasha qaranka ayaa waxa ay soo bandhigeen howlihii ilaa hadda u qabsoomay iyo heerarka doorashadu ay mari doonto iyo waxyaabaha qorshaha sidoo kale waxa aad loo amaanay oo iyana la hambaliyay guddigii shalay ay doorteen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka oo iyaga laftooda goobjoog ka ahaa kulanka